gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa xadhiga ka jaray Hotel Abu Dhabi oo magaalada Cerigabo ka furay ganacsade Maxamed Cabdille Guuleed oo kamid ah qurbajooga reer Sanaag. hoteelka ayaa ka kooban hurdo, cunto iyo dhamaanba adeegyada kala duwan ee ay bulshadu u baahan tahay, waxaana ka soo qayb galay furitaanka Hotel Abu Dhabi maamulka gobolka kan degmada iyo marti sharaf kala duwan oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn munaasabada furitaanka oo ka qabsoontay hoolka hoteelka waxa ugu horeynba ka hadlay mulkiilaha hoteelka Sheekh Maxamed Cabdille Guuleed oo faahfaahiyay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay hoteelku iyo sababta ku dhalisay inuu maal gashado dalka. aad ka soo qayb gasheen iftitaaxan runtii ma ogti aad iyo aad wax weyn bay tahay, marka waxaan oranayaa jazaakumullahu khayra. Cerigabo iyo Sanaag weligay waan maqli jiray, anuu dibad baan ku soo koray inay tahay magaalo dalxiisa oo wax kasta ay yaaleen, haddana wax dalxiis ku shaqo leh intaan imanayay maan arag. marka waxa weeye dadku iyo shucuubtu meesha Ilaahay quwad ka siiyo ayay ka kacaan oo ka qaataan. marka dalxiiskeenu waa daruuri, waa in la iskaashado. marka xoogaa yaro af Carabiga baan ku hadlayaa oo aan gaarsiinayo moogtahay dadka xagga jooga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو فندق أبو ظبي، بني في مدينة عرقابو في ولاية أو مقاطعة سناج. هذه المقاطعة مشهورة بالجانب السياحي، أكانت جبال المرتفعة أو أكانت البحار والسهول والشواطئ الرائعة، أضف إلى هذه البراري اللي موجود فيها. والآن بحمد الله بعد التوفيق في بناء هذا الفندق اللي متكون من غرف فندقية، جناح وVIP، وأيضا مطعم على مستوى راق. أضف إلى هذا قاعة الجيم والتسهيلات الأخرى. marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay ayaa dhankooda soo dhaweeyay furitaanka hoteelkan, iyagoona qurbajooga u soo jeediyay inay dalka maal gashato sida mulkiilaha hoteelkan. in badan waxa uu deganaa oo waxa weeyaan ku dhashay magaalada Cadan, waxna ku bartay, kadibna waxbarashadiisa runtii waxa uu uga gudbay Ciraaq oo halkaas oo ku bartay culumta idaara iyo iqtisaad. inta kadibna waxa uu gudbay oo uu inoo sheegay 44 sanadood uu ku noolaa wadanka Imaaraadka Carabta. juhuudiisa iyo dadaalkiisa runtii hoteelkan oo halka ka dhistay kaliya kuma koobna wadanka Somaliland iyo muxsiniinta dibadda joogay wadanka uu ku noolaa ayuu si fiican isugu xiray. waan Cerigabo aslan sida uu sheegay isagoo kuma dhalan kuma korin, laakiin waxa weeyaan maadaama uu u horayba meesha uu isagoo aan ku dhalanin maxaa ku raada kuna soo korinin inuu maalgelinta inta la ka sameeyo waa uga mahadcelinaynaa. leenahay dadkeena qurbaha tagay, dadkeena dalka dibadiisa ku maqan, waa inay soo maalgashadaan oo ku daydaan oo ku aaminaan dhaqaalaha sidoo ugu aaminay Sheekh Maxamed Cabdille Guuleed. dadku Carabaha waa wada tagaan, marka waxay ka dhistaan Turkiga iyo way ka dhistaan iyo Nairobi iyo way ka dhistaan Ethiopia, laakiin isagu gurigiisii buu galiyay. marka waxaan leenahay Ilaahay ha ka abaal mariyo. wuxuu halka ka sheekeeyay inaanu hore u iman Cerigabo uu haddana ku dhiiraday inuu maalka leeg inta leeg aynu soo aragnay idinkuna ka arki doontaan warbaahinta uu maal geliyay. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. reer Cerigabo waxaan leeyahay maanta waynu soo camiray, waynu nimid. dadka hudheelka loo furay waa madaxdiina sharafta leh halka fadhida iyo dadweynaha bilan, waa inaynu soo camiraa oo buuxinaa. waynu ku ambalyeynaa hawsha uu qabtay hoteelkana, waynu soo camiraynaa intii awoodeena dhammaanteedba intayna dhageysanaysa, intayna joogta iyo inta daawan doonta. waxaan leenahay hoteelku waa idin furan yahay. sheekh waxaan ku leeyahay hoteelkan aad maanta halkan reer Sanaag u furtay ha noqdo mid kuwii hore ka bedelan oo joogtee adeega aad maanta noogu yeedhay. waxaase lagama maarmaana
maadaama hoteelkan uu sida la sheegay imika dhowr qaybood uu ka kooban yahay qaybtii cunnada cafeteriyadii jiimkii qaybtii hurdada hoolalkii intiiba uu leeyahay waxaan boorin lahaa waxa ay wax ku isticmaalayaan qudaarta iyo waxyaalaha la midka inay soo saaraan ugu horreysay waxaan ka jeegareeyay halkii guurka ninkii doonaya miiyara yaroo iska khafiifana qolyo iyar baa loo dhisay ninkii miiyara weyn doonayana waxa loo sameeyey meel ballaadhan oo musqushiina gudaha ku taallo oo hayga soo bixin aad loogu baahnaa oo qurux badan ayaad noo furtay haddaan reer Ceergaabo adigu reer Ceergaabo tahay waxaan leeyahay ilaahay ku barakeeyo maalkiisii buu huray ilaahay waxaynu uga baryaynaa tuu geliyay iyo maqalku ka soo saaray mid ka badan in ilaahay u geliyo bogcadii ugu horeysay ee gudoomiyaheena cusub ee gobolku uu bacda ka jiray insha Allah gobolka ha noqdo hoteelkii laga faa'iido magaalada Ceergaabo oo runtii baahi weyn u qabtay hoteelada sidan oo kale ah inuu u guuro oo u huro hanti gaaraysa $500,000 waxay muujinaysaa la xijaalada uu magaaladiisa iyo gobolkiisa u qabo dadka kale reer Sanaag iyo reer Ceergaabo ee lacagta haysta ama magaalooyinka kala dhisayna waxaan leenahay war ku dayda baashe ugu dambeyntiina maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Axmed Isteber ayaa iyaguna soo dhaweeyay hoteelka Abu Dhabi waxaana ay ku bogaadiyeen mulkiilaha sida uu aaminay dalkiisa isla markaana uu uga furtay hoteelkan casriga waxaan ku amaanayaa runtii hantida uu quuray Ceergaabo ama gobolka Sanaag aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan rajaynayaa dadka inaga midoo dibadda jiraana inay ku daydaan sidoo kale waxaan kaloo u sheegayaa Ceergaabo way socotaa horay u socotaa rag badan baa hantidoodii geliyay dhul kale way isku qaamayn doonaan baan filayaa khayr badan baan filaynaa mustaqbal baa soo bidhaamaya inuu xadhiga ka jarno waayo waa horumarka gobolkay ka mid tahay shaqo abuurkay ka mid tahay 10 nin oo reer Ceergaabo baa shaqo ka helaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dee waxna waaba dheer yihiin oo egastaraana waa jira imika 10 inan oo reer Ceergaabo ama 20 inan oo reer Ceergaabo min waiter ilaa iyo maxaan ku raada cook baa ka helaya shaqo waa shaqo abuur weyn waanu dhiiri gelinaynaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaan halkan kelmad ka siinayaa qurbajooga gobolka Sanaag oo aan baaq uga dirayo inay gobolkoodii ku soo noqdaan inay gobolkoodii maal gashadaan Cabdirasaaq Suule MMTV Ceergaabo